qaatay dabagal dheer oo aanu ku daba jebinayna xogo dheeraada wuxuu barnaamijku soo ogaaday tirada murashaxiinta madaxweyne ee uu heshiisyada la qaatay Mahdi Guuleed iyo midka uu sida dhabta ah u dabaanbuulan yahay. Mahdi Maxamed Guuleed waxa uu heshiis la galay murashaxiinta madaxweyne ee kala Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, murashax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed, murashax madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo murashax madaxweyne Siciid Cabdilaahi Deni. Xogtu waxay gaballa ka cadaysay in Mahdi Guuleed uu xoogay uskaga iyo bowladaha uu ka halqafay raggan oo uu dhegta u saaray inuu haysto mudanayaal uu la soo baxay, kuwaasoo uu malaha sida ari damaanka saylada soo tubi doono. Haddaba daawadayaal waa kee murashaxa ugu dhow ee aanu la baarmarayn gebi ahaanba codkiisa iyo dhowrka mudane ee daabaxa ah lagana yaabo inuu xadhigga soo sulo. waa iyaga yaalahooda waxaa la biniixiyay inuu si rasmi ah u daba yuuban yahay Khadar Guuleed aabihiisa siyaasadda ee ummadda hor keenay kuna hayay shanta guu ee u dambeeyey saaxadda siyaasadda Soomaaliya, kaasoo ah madaxweynaha miligiisa idlaaday ee Farmaajo, taasoo marageedu yahay dhowrkii xildhibaan ee daba ka eriga ahaana wuxuu ku toosiyey cabuudha madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. murashax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed ayay dantu ku saduleysay xilliga ay socotay kala xulista xildhibaanadu, maadaama uu yahay helada hoose ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble, oo uu sheegay Mahdi Guuleed inuu yahay murashaxa uu dhisayo Roble. docda kale labada murashax madaxweyne ee Siciid Deni iyo Sheekh Shariif ayaa kuwa uu kaga baxay wacd caloole, iyadoo aanay jirin arrin iyo adduun mid ay ka heli doonaan xilliga tartanka doorashada soo fool kale. hase yeeshee war jiraaba cakaara ayuu iman. dhaqaale intee leeg ayuu Mahdi Guuleed komishan ahaan uga qaatay murashaxiinta madaxweyne ee doonayay in loo xidho kursiga xildhibaanka ay wataan. sidoo kale barnaamijka dabagalka ayaa tooshka ku ifiyey soona helay shilimo iyo cantayno uu Mahdi Guuleed ka soo hardafay murashaxiinta madaxweyne ee u mucurtaysan xildhibaanada cusub ee gobolada waqooyi. wuxuu ugu sanqaday Mahdi Guuleed dhammaan murashaxiinta madaxweyne inuu soo taagi doono hortooda hadba mudanaha baarlamaan ee ay rabaan, waase haddii ay jeebka ugu shubaan waxoogay $100 oo dhan $150,000 oo waraqaha Maraykaana. xisaabtan ayaa la sheegay inuu maareeyey Mahdi Guuleed laba qaybood oo kala ah. $50,000 wuxuu farta ka saaray xildhibaanka kursiga loo xidhayo habeennimada ergada gafuurka xidhan ee aan la aqoonsanayn loo xaraynayo. lacagtaasoo ergada iyo shanta xubnood ee xulista loo qaybiyo kadib markay gacanta u soo taagaan xildhibaanka wambarka loo xidhay. boqolka kale ee soo hadhay ayaa la sheegay inuu ku aayooday kiishada Mahdi Guuleed, kaasoo aan laba calis weydiin. adduunyada ninkii noolo maxaa aragti ku laaban. siduu barnaamijka dabagalka lagu ogaaday wuxuu noo xaqiijiyay mid ka mid a xildhibaanada cusub ee uu Mahdi u xidhay mid ka mid a kuraasta Somaliland oo naga dalbaday inaan magaciisa qarino, inuu Mahdi Guuleed kuraasta qaar oo welibana kiisu ka mid yahay uu 2 jeer gacanta gooyey, isaga oo in qarasha kaga qaatay Farmaajo iyo Sheekh Shariif. isku celcelis ahaan dhaqaalaha ilaa iminka la hubo ee uu Mahdi Guuleed ka sameeyey habkan baajeeriska u eg ayaa dhammayd lacag gaadhaysa 4,600,000 oo lacagta Maraykaana. maxay ahayd haddaba ujeeddadii boobka kuraasta xildhibaanada Somaliland intooda badan, muxuuse isaga damaciisu yahay? ujeeddada boobka wambarada Somaliland intooda badan ayaa salka ku haysay damaciisa siyaasadeed iyo inaanu ku soo bixin hal kursi oo uu hanto nin leh aqoon iyo karti iyo weliba raganimo oo kula loolamo matalayaasha sare ee beelaha dir, isagoo doorkan doonay doonto mar kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda dhalan doonta gugan bartamihiisa, isagoo ku bixin doona dhaqaalaha uu mulbiska ku keenay ee uu ka sameeyey qorshaha dowladda Soomaaliya ee wakiinaya ama lowdaya. Mahdi Guuleed wuxuu itaalka geed dheer iyo mid gaabanba u fuuli doonaa siduu xilalkaas sare ku qaban lahaa, balse riyadaasi lama oga inay rumoobi doonto oo ay ku dambayn doonto ka kaco kooraha ujeed. guntii iyo gunaanadkii waxay xogadda cogaysii sheegayaan inay jiraan dhaqdhaqaaqyo kacdoon oo ka dhana Mahdi Guuleed, kuwaasoo ka bilaabmay gobolka Banaadir oo ay hormood u tahay dalada midnimo ee ay ku midaysan yihiin bulshada reer Somaliland kuna dhaqan Muqdisho, oo dhowaan bilowday afti dadweyne oo ay ku saxiixi doonaan 4,000 oo